بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوضي الكسو دوادا برنامجك بندقة HBN برنامج كان كبي هانتس بوحي نكسو وقادرينها بارتان ورباهنتا ودك مريكان أي سميسي أي واحد لقو أقعدي كالين مريكان كأي وضمدا كالي أرهار قلبيتك أي كل يهين دقالك كسعود ودك يوكرين أرنتاسي أو أهميد قرسودية طبعا وحالو أكسوني هاي إنو وضمداسي يوكرين أي سب بوحدة أتاقيريين لكن معلومات كان قرسودية إيه أن الأوجين والروش كنا هوري أوجديجي محوي waxaa idin faahfaahin doonaa xog cusub oo arrintan la xiriirta iyo kaalintooda wadamadaasi ay ku leeyihiin dagaalkan iminka sanadkii afraad ku dhow ee ka soconaya waddanka Ukraine internet plus ciwaanka adoo inoogu bilaabaya maxaa lagu bilaabay wargeyska New York Times la yiraahdo ayaa baaritaan uu sameeyay waxa daboolka looga qaaday warar aan hore looga hadlin ee qarsoodi ah doorkii uu Mareykanku ku lahaa dagaalka Ukraine wargeyskan warbixintan dheer uu qoray ee baaritaanka ayuu kaga hadlayaa waxa lagu sheegay waxyaabo qarsoon oo ah dawladda Mareykanka doorkii ay ku lahayd howlgallada military ee Ukraine ee ka dhanka waddanka Ruushka ee ciidamadooda Ukraine soo galeen baaritaankan oo uu ka shaqeeyay Adam Antos ayaa dabool ka qaadaya doorka qarsoon ee Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka iyo xulafadiisa ay ku lahaayeen sidii loo taageerayay Ukraine ilaa ay markii uu dagaalka Ukraine bilowday ee waddanka Ruushka 2022 waxaa jiray iskaashi qarsoodi ah oo ay ku jiraan dad militariga qorsheynta u qaabilsan ciidamada sirta iyo agab military oo technology ah iskaashigaasi ayaa bilowday gugii 2022 in yar kadib markii uu dagaalka bilowday Ruushku uu ku soo galay waddanka Ukraine sida baaritaanka lagu xusayo markaas oo mas'uuliyiintii sarsare ee generaaladii Ukraine loo bedelay xarun ay leeyihiin taliska Mareykanka ee ku taala Welsbanden ee waddanka Jarmalka halkaas oo laga aasaasay in gundig looga dhigo in lagu dhiso iskaashi aanan weligii hore loo arag oo mar dambe noqday laf dhabarka howlgallada militariga ee waddanka Ukraine waa gartay waayo Maxamed marka ma la sheegay hawshan qarsoodiga ah ee wargeyska soo bandhigay waxa ay ka kooban tahay iskaashigan ayaa bartilmaameedkiisu ahaa in si toosa taageero military iyo taageero sireed loo siiyo Ukraine maaha oo keliya in hub la siiyo Ukraine balaayiin dollar iyadoo Mareykanku uu Ukraine siinayay xog muhiim ah gaar ahaan ciidamadooda wuxuuna tilmaamayaa wargeysku in la daneynayay in awood loo yeelo ciidamada Ukraine si ay xanuun xoog leh u gaarsiiyaan ciidamada Ruushka dhab ahaantii sida baaritaanka lagu xusay arrintan waxay gacan ka geysatay in Ruushka ciidamadiisa ku sugnaa Kherson iyo Melitopol iyo dekedda Sevastopol ee Crimea in weeraro joogta lagu qaado taasoo horseeday in ciidanka Ruushka ay dib uga gurtaan meelahaasi waxyeello weyn la gaarsiiyo saraakiisha Mareykanka iyo Ukraine oo wada shaqeynayay iskana barbar shaqeynayay ayaa maareeyay dagaalka inay ka hagaan xarunta Westbaden ku taala ee dalka Jarmalka taasoo ka dhigaysa xulufada reer galbeedka inay si toos ah qayb uga hayeen howlgallada military ee Ukraine iyo Ruushka u dhaxaya waa gartay dhowr jeer arrimahani Ruushka waa ka digay marka arrintan marka qiimo ka qaadatay dagaalku inuu sii xoogaysto xiisadana ay ka sii darto marka la fiiriyo Ukraine weerarkii rogaal ciidanta ay qaaday oo ay la kaashanayso wadamada reer galbeedka ayaa loo arkay in ay dardar gelisay caqabadaha sida laga soo xiganay wargeyskani markaasoo khilaaf uu soo kala dhexgalay hogaankii Mareykanka iyo kuwa Ukraine hadafyada istiraatiijiyadeed ayaa la isku qabsaday iyadoo Ukraine ay raadinaysay inay dhul ballaaran si dhaqso ah horumar siyaasadeed oo guul ku gaarto halka Mareykankana uu ku tala bixinayay inay taxadaraan iskuna haleeyaan
awoodooda intay la egtaan kana baaqsadaan inay dagaal ballaaran ruushka la galaan gaar ahaan marka ay timaado khadadka cascas ee ruushka uu leeyahay oo ay ka mid tahay premier inaan la weerarin xiisadaha noocaana ayaa muujiyey qorshayntii 2023 ee weerarkii lagu qaaday magaalooyinka Melitopol iyo Bakhmut halkaasoo ciidanka Ukraine madaxweynahooda Zelensky uu faragelin ku sameeyey taasoo keentay in hubkii iyo saadkii Ukraine ay haysatay wax tarig noqon waayaan mid ka mid ah jeneraaladoodana loo xil saaray Bakhmut oo Ukraine ciidankeedii halkaas uu ku ruux iyo dhiig baxay weerarkii halkaa laga wadayna uu fashilmay sida baaritaanka lagu xusay waa gartay hubka sida gaarka ah arrimaha loogu adeegsaday ama laga caawiyay Ukraine maxaa laga sheegay xilligaas iskaashiga baariyaashu waxay sheegayaan agabka teknolojiyada militariga ee Mareykanka ayaa door muhiim ah ku lahayd in Ukraine ay isticmaasho gantaalada Hammerska loo yaqaan iyo diyaaradaha droniska iyo maraakiibta dagaalka doomo yaryar oo ayagana dronis ah oo bartilmaameedyo istiraatiijiyadeed ee wadanka Ruushka gudihiisa lagu weerarayo halkaasoo Mareykanku uu xogta iyo keenayay agabka si loo xaqiiqsado in weeraradaasi ayna fashilmin oo ay niishaabkooda sugnaadaan waxaa la abuuray xarun howlgal oo ku taala gudaha wadanka Ruushka gudihiisa u ogolaanaysa in ay kala socdaan hubka ay bixinayaan sida uu wax u yeelayo ciidanka Ruushka oo ku sugan dhulka Ruushka marka laga gudbo in laga baaqsanayay in bartilmaameed laga dhigto goobaha rayidka ah iyo golaha kaabayaasha siyaasad ahaan xasaasiga ah iskaashigaasi ayaa caqabado waaweyn oo siyaasadeed ku hor yimaadeen markii madaxweyne Donald Trump uu xukunka soo noqday iyo khatarta ka dhalatay in uu bilaabay siyaasad uu xiriirka Ruushka ku hagaajinayo taasoo hoos u dhigtay Mareykanka awoodii u lahaayeen inay si buuxda u taageeraan Ukraine taana waxay dhalisay in dib u qiimeyn lagu sameeyo iskaashigii ka socday magaalada Webstein ee dalka Jarmalka ee Ruushka Ukraine oo cadow u ahayd iyo wadamada reer galbeedka ee Mareykanka iska kaashanayay taasna tartiib ayaa hoos waxa ugu dhacay taageeradii tooska ahayd sida baaritaanka lagu xusay waa gartay baaritaanku markaa iyo taageeradan la siiyey ma sheegay in Ukraine ay ka caawisay arrintaasi ileen waxaynu ognahay Ukraine bilihii ugu dambeeyay jug culus inay soo gaartay xagga dagaalka hogaanka Ukraine ayaa culays badan kala kulmay sidoo ciidan dheeraada ku helaa agab la'aan military ayaa haysay askar la'aan xilligaasoo Zelensky uu ku baaqay in uu guul degdega soo hoyiyo isagoo taageero ka helayay wadamada reer galbeedka iyo taageero niyadeed taasoo abuurtay in ay timid waxyaabo aan la isku halayn karaynin Ukraine hadafyadii dowladeedu lahayd iyo awoodii military ee lagu caawinayay ayaa isyeelan waayay sida baaritaanka lagu xusay marka laga gudbo caqabadahaasi iskaashigii ayaa waxaa lagu gaaray xoogaa guulo waaweyn in la soo hoyiyo oo lagu xoreeyo magaalada Kherson khasaare xoog weyn loo geysto sida uu wargeyskaada ku dhigayo ciidamada Ruushka iyo kaydkooda hubka iyo maqaasiinadoodii iyo buundadii muhiimka ahayd ee isku xiriisay jasiiradda Crimea in la duqeeyo Kerch la yiraahdo iyo in la duqeeyo Ruushka gudihiisa oo diyaarada dronesa oo reer galbeedka ku caawiyaan lagu duqeeyo waa gartay waa hagaag anagoo gabagabada ku jirnaa marka Maxamed maxaa kaloo baaritaanka lagu soo gabagabeeyay ama uu xusaya
baaritaanka ayaa sidoo kale muujinaya sida ay u xadidan tahay agabka military iyo aqoonta iyo farsamada ay reer galbeedka ku caawiyeen waddanka Ukraine si ay u xakamayso istiraatiijiyada dagaalkeeda. Go'aankii ugu dambeeyayna waxa uu noqday in weerarada la qaadayo iyo dhulka ay gacanta ku hayso Ukraine in ay gacanta ku sii haysato hoggaankeeda, laakiin taasi waxay noqotay meesha xiisadda ugu weyn ee ka dhalatay labada dhinaca sida wargeysku xusayo. Baarayaasha ayaa kusoo gabagabeeyey iskaashigaas militariga ee qarsoonaa ayaa gaaray xaalad aad u adag. Ukraine oo adkaysiga ay isaga caabin karto ciidan ka xoog badan oo Ruusha uu yaraa, waxaa la isku dayay militariga Ukraine inay gaaraan guulo istiraatiijiyadeed horraantii dagaalka. hase ahaatee waxaa kashifmay awoodaha bannaanka reer galbeedka iyo Maraykanku waxay ku taageerayaan in waxtar weyn u yeelan waaye maadaama istiraatiijiyadooda militariga iyo siyaasadooda gudaha ay aad u kala duwaneyd. dagaalka ayaa jiitamay ilaa iyo soo gaaray 2025. mustaqbalka Ukraine iyo nidaamka caalamiga ee Yurub ayaa hadda khatar weyn iyo go'aan siyaasadeed ee la soo gudboonaatay oo dib loogu qaabeynayo isu dheelitirnaanta xagga awoodda ah, halka loo baahan yahay in la xoojiyo militariga Ukraine isla markaasna iskaashiga xulafada wax laga qabto si wax looga qabto caqabadan weyn ee ka timid Ruushka oo ah ciidankooda inaan la loodin karayn. waa gartay Maxamed, marka haddaynu intaas kaga gudubno warbixinta wargeysku uu qoray, Ruushku muddo dheer wuxuu lahaa qadcas weeye in ciidamo iyo taageero noocaynkaasiya ay ka howlgalaan gudaha waddanka Ukraine. haddii marka xogtan ay soo baxday, hadalkiisu ma hal bacaad lagu leysayba mise tilaabooyin kale u qaaday? maxaynu ka ognaa arrintaas? Ruushka wax ka qarsoonaa ma jirin. macluumaadkan hadda soo baxaya Ruushka hore u sheegay in reer galbeedka ay ku jireen farsamo ahaan hagista gantaalada, tarada, farsamada. dhowr ilo oo kala duwanna waxay xaqiijiyeen xataa inay gacanta ku dhigeen ama ay duqeeyeen goobo ciidamo reer galbeed ay ku sugnaayeen oo saraakiil badan ay ku dileen. waxa soo kordhay oo ay reer galbeedka ogaadeen waxa weeye awoodda ciidanka Ruushka intay la ag tahay, qiyaastii ay rabeen iyo wixii ay rabeen baa suuroobi weyday. xaqiiqada soo baxda ayaa waxay tahay agabkooda militariga iyo xirfadooda dagaalka inayna u dhigmin midii Ruushka sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan. baaritaanka uu wargeyskan sameeyeen uu maldahaya caqabada ayaa ka soo gudboonaaday ayuu ku leeyahay, oo macnaheedu waxa weeye sidii aan rabnay wax waa u shaqeyn waayeen. taageeradii iyo farsamadii la waday iyo ama xagga talaha la siiyo ama naqshadeynta la siiyo ama xog la siiyo, Ukraine ayaa caqabada ka yimaadeen. waxa weeye qariimihii Ukraine la siinayay ayaa guul darro keenayay. Ukraine waxay leedahay ciidan badan baa nagu dhimanaya, siyaasaddan ma shaqeynayso. waxaa muuqata marka hadda in xaqiiqada dhabtee la soo taabtay ay tahay, oo wararka hadda ugu dambeeyay ee ka soo baxaya waddanka Ruushka ay sheegayaan Ruushku uma muuqato in uu gorgortan ka geliyo wax uu gacantiisa ku kasban karo oo ah dagaalkan inuu meel uga soo harayo. waxaynu arki doonaa meesha ay ku biyashooto. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn, hadda kusoo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo.